السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ardayda ku xiran channelka Sayda Academy waxa idin leenahay maalin wanaagsan, galab wanaagsan, duhur wanaagsan, habeen wanaagsan, qof walba waqti ay u tahay ayaan ku wada salaameynaa hadduu alla idmo. maanta waxaan qaadan doonaa casharkeeni tawanaad waxaanu ku saabsan yahay wada sheekaysi. wada sheekaysanaya waxa weeye A iyo B. ayaan ku hormaraya waxa uu leeyahay I greet you sir. mudane waan ku salaamay. B wuxuu leeyahay boss I take. boss waan ka qaaday salaantaada, yani uu salaamay qofka xigana waa salaanta ayuu ka qaaday. waxa uu leeyahay marka my friend saaxiibkaygu, as you know, sida aad ogtahay, every country wadan walba has economic resource. waxa uu leeyahay khayraad dhaqaale ama ilo dhaqaale ah. for example, Saudiya economic, Saudiya dhaqaalihiisa depends, waxa uu ku tiirsan yahay on batroolka ama shidaalka ayuu ku tiirsan yahay dhaqaalaha Saudiga. Japan economic depends on cars. Japan dhaqaalihiisa waxa uu ku tiirsan yahay baabuurada. wadankaas baabuur ayuu soo saaraa inta badan, dhaqaalihiisana meeshaas ayuu ku tiirsan yahay. Ethiopia economic depends on coffee. Ethiopia dhaqaalahoodana ayagan waxa uu ku tiirsan yahay waxa weeye kafeega ay aad u soo saaraan dadkaas. so marka saas daraadeeda, what does the economy of our country, marka waa maxay dhaqaalaha wadankeena, marka waa maxay dhaqaalaha wadankeena uu ku tiirsan yahay? what does the economy of our country depends, waa maxay dhaqaalaha uu ku tiirsan yahay wadankeena? on I mean waxa ula jeedaa Somali country, wadanka Soomaaliya ayaan ula jeedaa. B waxa uu leeyahay the economy of our country, dhaqaalaha wadankeena depends waxa uu ku tiirsan yahay on farming, beeraha, fishing, kalluumeysiga, and livestock iyo xoolaha. yani dhaqaalaha wadankeena Soomaaliya waxa uu ku tiirsan yahay waxa weeye beerashada ama beeraha iyo kalluumeysiga iyo xoolaha. so wuxuu leeyahay marka who was responsible to destroy our country, yaa mas'uulka ka ah burburinta wadankeena? who was waa kuma ama qofka mas'uulka ka ah to destroy our country, burburinta wadankeena? B waxa uu leeyahay to destroy our country, burburinta wadankeena was responsible waxa ka mas'uul ah ignorant people, dadka jaahiliinta ama dadka jaahiliinta ah, and faction leader iyo hogaami kooxeedyada ama hogaami kooxeedka. okay, wuxuu leeyahay marka how can we get peace and stability, sidee aan ku heli karnaa nabad iyo xasilooni? how can we get peace and stability, sidee aan ku heli karnaa nabad iyo xasilooni? B wuxuu leeyahay if we act on Islamic religion, haddii aan ku dhaqanno diinta islaamka, we can get them, waan heli karnaa wax walba ama dhammaan sida nabadda, xasiloonida iyo dhaqaalaha. so marka waxa way wadan walba hadduu nabad uu leeyahay, dhaqaalihiis kor ayuu kacaya, nabadda waa imaanaysa, wax walba ayaa imaanaya. so marka casharkan wuxuu ku saabsan yahay dhaqaalaha wadamada qaar waxay ku tirsan yihiin dhaqaalahoodii. marka intaan ku sameeyna casharkeena, ardayda ku cusub waxaan leenahay subscribe inoo saara. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته.